waxaa salaantaada u diyaara cutubyo ka tirsan ciidanka qaranka jamhuuriyadda somalilan oo kugu soo dhowaynaya akatabiyadda carmiska shaqo qaran mudane madaxweyne ku soo dhowow قبيلكيو كاكا حيس قويسكي ووحا قبيلكيو كاكا حيس قويسكي وكويا قالين كويا قفنا نهوهي وكويا قالين كويا قفنا نهوهي شاقا قرن شاقا قرن شاقا قرن شاقا قرن
ووحا قبيلكيو كاكا حيس قويسكي ووحا قبيلكيو كاكا حيس الحمد لله إلهي ومحمد له هذه أدبار مهبرين يا شغقر يسموه ذا هذه أدبار مهبرين معلمين تودا ينتهي تابرتي أرضنا ما أنت خلي جبسه هنبريو وحنا هذه أدبار فرح سنة عمانته إن هالدور كي سومال اللان يا أقوياء كودي يدك يقول مضنا حق التعليم تا حق مامول حق ويرك أي كلا صوت يبقرن اللي يرادا حفلة الحرتان كا دفعتي صدحات يا شقاقرة وحيلتها هذا انت اللي سور لها يا لقى هذه لها حفلة المانطة يقرأ كباب وليلي انت هذا الشيء سيد في عرضه هذا هل كاي كقادم ما كقاضي هل كاي دقي نوار دقي كو وحنوك عاي إن نكون واقنو إن مانطة أي صاحر أنتي تبركي يا وقتي اللي عربنا أيه dhalinyarada shaqo qaran ee dafcadii saddexaad ma tooxid waxa kaloo halkan soo taagay inaan sheego in dhalinyarada 300 ee inamada ah ee shaqo qaran loo tababaray ay yihiin laga bilaabo maanta kaydka ciidamada qaranka قرب ساعته يرنا أيام غير مركان سوكو وحي مانتا أي نوع شيئين وذاش إنه هو بدن يدك إنه هو يركز إن بدن ما تاريخ الذي كشكيا إن بدن ما لنا مستقر هذي وحدول يقفوا سومال الذي هبا ذاك استوى هاي يا قوم كستوى هاي inuu isweydiiyo halka uu la doonayo inay Soomaaliland gaadho 10 sano soo socda dad badan oo halka jooga ahaan 10 sano soo socda talmaaya hadday nool yihiin oo noloshu gaarsiina wax laga yaabaa inuu cimraayo oo aanay shaqayn karin dadka la rabo inay ka fikiraan 10 sano ka bacdi xagee la tagayaa waa dadka dhaadhaxaadka ah dhalinyarada shaqo qaran jaamacadaha ka baxday ee ka mid yihiin kuwa badan kale ee nasiib u helin halkan iyo aqoonyahanka kale iyo dad kale da'da yar ee da'du sodon tahay waxaan jecelahay inay ka fikiraan Somaliland 30 sano ka bacdi markuu qofkaasi 60 jir gaaro sidee buu doonayaa inuu weekaato haddayna taa ka fikirin
oo aanu qofka higsigiisu halkaa noqon oonu cimrigiisa iyo daadsi ay soo eegin waxay la tahay inaynaan mid fogaanayn waxaa kaloo ku dardaarayaa inuu mabda'eenu ahaado ilaahay wuxuu inoo abuuro bini aadmi u abuuray waxaynu nahay khaliifa waa power adduunyada inaynu maamulno bini aadmigu ilaahay u doortay qur-aankiisu ku sheegay mar haddii karaamadaanayna siyoon bini aadmi nahay haddaynu nahay somalilan inagoo aayadaa raacayna qofka somalilan da-du yahay halku jooga waynu ka fakiro haddii ilaahay xilkaa ku saaray xilkaa ka soo bax maxaa xilkaa lagaga soo baxayaa wax kasta oo bini aadmiga ama noolaa wax u taraya inaad ku tacabto tacabka xageed ka bilaabaysaa ciiddood ilaaliso noloshooda ciidday ku xidhantay geedkood beerto noloshooda geedka ku beerto qofka bini aadmiga ah oo ku kasta uu yahay midab kasta iyo diin kastuu leeyahay waxtar mooye waxyeelidiisa aanad ku hamoonin maxaa taa garab yaala hadday nolosha abdaa qaadano oo caalamka diimaha samaawawiga ah falsafadaha dhammaantood taa isku raaceen maxaynu ku daraaye garab socda waxaa ka garab socdoo kugu waajiba intaa kharibaysa ee baabiinaysa inaad ka hortagtaano waxa ku saaran mardaad khaliifo tahay markaa waxaan isku darnaa Soomaaliya haddaynu nahay inuu ahaado mabda'eenu noolaha waxtar adduunka waxtar bini aadmiga waxtar wixii waxaa wanaagsan kharibayana ka hortag inaynu mabda'a ku shaqayno oo aynu intaa ku soo koobno maanta dardaarankeena waa intaa wixii wanaag oo helisaan wixii xumaan oo hortagtaan iyo dalkiina oo ka fikirtaan 30 sano ka bacdi xageebo noqonaya iminka waxa laga yaabaa dhowr tajribaadkiin 5 markaad gaadho xagee doorsada ka gaarad geyso markaynu taa isla garayno hore u mari karnaa iyo si qaad karnaa waxaynu mahadnaqaynaa dadka noloshooda kun intii badnayd 100% huray inay dalka hore u mariyaan ee halkan ka hadlay ee macallimiinta professorada ee aadnale ee generaalana aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waxaan ku soo koobayaa qodobka taariikhda aad ugu noqdo ilaahay mahdi waxa inoo hirgalay oo dhammaad inoogu dhow hooyga qaranka taariikhda Soomaaliland ama museumki waa dhismo dheer taariikh gaar u leeyahay waxa weeye khayriyadii laga bilaabay Hargeysa inay isku timaado odayaashii oo ay ku tashadaan oo darooda ka tashadaan wax badan uu soo maray halgamo badan uu soo maray taariikhda isagoo maanta waxa ka dhigay museumki qaranka wuxuu u baahan yahay taariikhda dalka oo qoran laga wada qayb galo oo taariikhdeena wanaag iyo dhibaato ahayd baa la dhigo oo qof waliba ka geysta qaybtiisa si ay ugu cibran qaataan dadka inoo imanaya iyo da'yarteeda waxaan ugu dambaysiintii doonayaa inaan dadka halkan joogo aan isbaro maanta waxaan iswaraaga ka soo qayb galay xafladan nin ka mid ah dhalinyaradii dalka dhibaatada weyn soo martay isagoo aroosa la xidhay dil lagu xukumay 20 jir 10 sano soo dhameeyay haddana nolosha ku soo noqday oo aan shaqo tagin ee haddana halkii ka bilaabay sama falka iyo inuu dadka u shaqeeyo maxamed baaruud oo ah gudoomiyaha hay-adda xuquuqsaaka waxaa jecelahay in dadkaas bartaan waa maadsantahay maxamed ragga la mida waxaa jecelahay in muusibka ka qayb galaan waxa ay soo mareen dadka uga warrabaan si aanay dhalinyaradu tii oo kale ugu dhicin aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa dhammaantiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu